culimada iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle ayaa waxay fariin u direen qoyska reer Xaaji Xaashi meel kasta oo ay joogaan dibadda iyo gudahaba inay ka soo dhisaan masaajidka uu dhisay Allah u naxariistay aabahood Xaaji Xaashi oo masaajidkaasi haatan uu ku yaalo xaafadda Isbaata masaajidkaas oo lagu magacaabo Nasruddin imikana masaajidkaasi waxaa lagu sameeyay ballaadhin isla markaana waxaa lagu wareejiyay deer iyadoo masaajidkaasi lagu leeyahay dhaqaale aad u fara badan haatan dhismihiisa uu istaagay masaajidkan cidii dhistay iyo halka imika uu marayo iyo waxa uu baahan yahayba waxa ka hadlay Sheekh Ismaaciil Cabdi Xaashi Al-Cafi oo kamid ah culimada diinka waxaana uu fariin u diray qoyska reer Xaashi Xaashi meel kasta oo ay joogaan dibadda iyo gudahaba inay soo dhisaan masaajidkaasi isla markaana la soo xidhiidhaan Yuusuf Sheekh Cabdi oo isaga masaajidkaasi haatan gacanta ku haya نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يهد الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان مركركم بلاغيا إلهي أنك يا أبن نبي محمد على صلى الله وحان الله يعني وشيخ إسماعيل عبد أحمد وشوق Buuhoodle يا Xaaji Xaashi oday gabadh inaan haddii ay ku rooyahay ama ha ahaato wuxuu dhalay ama waxay sii dhalan noqotay waxa u baxaysay Xaaji Xaashi wuxuu dhisay masaajid naxariis janna Allah siiyo Buuhoodle ka dhisay masaajidkaas oo muddo badan joogay kolba haddii uu joogayba isagaa dhisay oo meesha haddii ka dhisay laba jeer waa la wargeliyay mar waa la dumiyay waa la socday bariga haddii ka dhigo yaa hagaajiyay mar dambana waa la dhisay masaajidkii haddii ka dhigo dayacmay dad faqiiriina baa gacanta ku hayay oo dhisi kari waayay oo gogoshiisii iyo nidaamkiisii u geli waayay masaajidka dhul baa loo iibshay waa la dhisay oo haddii baa loo sameeyay dhulna waa loo iibshay dhulka lacagtiisina waa la leeyahay dhismihiisina waa la leeyahay inta waa la leeyahay laambad baa u baxayso laambadaas diiniyada haddii ilaahay ka dhigo idaa maata ibnu aadama qadaa camalahu ilaa talaatatin sadaqatun jaariyatun wa cilmun yantaficu bihi wa waladun yadcuu lahu saddexdaa maaha wixii kale camalkoodu waa ku ibaanay saddexdaas camalkoodu waa soconaya sadaqa jaariya u socotay allahu naxariisiye u socotay waxaan leenahay dadkii uu warasadiisii waxa ahu masaajidka haddii ilaahay ka dhigo tacabkiisa gala soo hagaajiya ilaah baa akhriya adduunba idin hagaajin deynta haddii deyn baa lagu leeyahay ka soo bixiya dhul baa loo iibshay deyntii waa lagu leeyahay lacagta haddii lagu dhisay haddii lacagtii waa la leeyahay waxaa ka wakiilahoo lacagtaa lagu soo hagaajinayaa Yuusuf Sheekh Cabdi dhiga qool anigu Sheekh Ismaaciil Cabdi Axmed way garanaysaa haddii ilaahay ka dhigo wixii way garanayaan nimanka waaweyn ee Maxamed Taani iyo Ibraahim iyo nimankii waxa ka nool way wada garanayaan ninkaasaa lagu soo hagaajinayaa ninkaasaa haddii ilaahay ka wakiil ka ah isagaa dhulkana iibshay lacagtana haddii ilaahay ka dhigo isagaa dadka lacagtana og masaajidka waxaan codsanaynaa inaad u dadaashaan oo deentana ka soo bixisaan isagana hagaajisaan ilaah baa idin hagaajinaya akhriradun baa hagaajinaya laambadaasu yay ka baktiin awowgeen ama aabihiin yay ka baktiin anagu sidaan idin leenahay sidaa weeye kaasaan idinku gubaabaynaa kaasaan idinkula hadlaynaa ninka haddii ilaahay ka dhigo rag iyo dumar waa xaajadaasaan idinku gubaabaynaa idinkula hadlaynaa sidaa haddii ilaahay ka dhigo camal baa soconaya camalkaa ayaan laga goynin camalkaa sadaqada jaariyada ayaan laga goynin annagu sidaasaan idin leenahay idinku taakiidaynaa waa idinku ammaanayna waa idinku ducaynaynaa sidaa weeye annaga lafteeda dhib buu lagu hayaa masaajidku dhib buu lagu hayaa oo magaca Xaaji Xaashi baa dhisay baa yaa dhib lagu hayaa yaa lagu dhisaa dile waa duleysay haddii ka dhigo kaasa dhib lagu hayaa sidaasaan idinku codsanaynaa waa idinku gubaabinaynaa ka maqlow kaan maqal gaarsii kii xaajada maqlow kii aan maqalin gaarsii ninkaasa lagala xidhiidhayaa Sheekh Cabdi Yuusuf Sheekh Cabdi dhiga qool garanaysa ma laga xidhiidhayaa sidaas haddii ilaahay ka dhigo yaan kugu gubaabinaynaa waad mahadsantiin haddii ilaahay waxaan idinka rajaynaynaa ilaahay haddii ilaahay ka dhigo inuu khayr idinka siiyo masaajidka haddii annagana khayr ilaahay naga siiyo masaajidka waa bayd ilaahi weeye
وديعي إلهي كبي يا أخي أدو بديع إلهي كبي يا إلهي وديع كبي وقرقارية إلهي وقرقارية لكي وقرقار وسالك إلهي وقرقارية أرجو سيدا أسأل الله يقول تأكيد يقول الدعيرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.